daawadayaal ku soo dhawaada Nawaaxi TV anigoo ah Cabdiyare iyo waxa halkan martii inooga ah aadan Bandar Qaasimi oo ku nool magaalada Minneapolis aadan ku soo dhawaada programka thanks Cabdiyare saaxiibkay inaan TV-ga interview ka yeesho wad maasantahay aadan waxaan rabaa xoogaa inaan ka wareysto how much impact bay ku sameyn karaan dhalinyarada Soomaaliyeed dalkooda wallahi niyo impact badan bay ku yeelan karaan dhalinyaradu waxa waaye taariikhaha caalamka iyo hornimooyinka wadan gaaray ama nation gaaray role fiican bay ku lahaayeen oo hataa u dhawaa ama inta sidoo ka warqabno wadankeena ku jiro oo ay ahaayeen 13 wiil oo maaragtay fursado badan oo hadda inagu haysan oo maaragtay gaalo haystay oo gumaysi haystay baa wadanka dhan baa ilaahay ka sokow lagu maartay gul ugu gaaray SYL Somali Youth League ma sanad su'aashii labaad waxay tahay situation waxaad ka hadashay in Soomaaliya xornimadeedii ay ka qaateen qayb libaax dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay haddan arrinta jirta iyo waagii xornimada la qaadanayo Soomaali weyn ay wada jirtay inay kala duwan yihiin haddan sidee bay dhalinyaro intay halkan ka tagaan ama ay is ururiyaan waxa oo qaban karaan dalkan Soomaaliya oo hadda aad aragtay xaaladiisa niyahow waagii de horta haddaan isbarbar dhigo waxa u malayneen waagaas dhalinyarada doorka ka qaadanaysay xornimadoonka inaan iyaga ruuxooda dhib haysan oo macnaha caqabada jirin caqabadaha maanta jira waa inaga dhexdeena caqabadihii waagi hore jirayna waxay ahayd caqabado shisheeye bay ahaayeen oo maaragtay shisheeya wadankeena haystay xoog uu ku haystay cidii xornimo raadisay iyo cidii hadashana waa taa uga wixii lagu sameeyay maanta dhibtu waa inaga dhexdeena waxaan aaminsanahay inay ka sahlan tahay maanta caqabadaha jira waagaas maanta sahlan maxaa yeelay maanta waa inaga dhexdeena inagii waa iska raadin karnaa waa is afnaqanaa waa is dhaqan naqanaa isku diin baan nahay meelaha laga abaaro dhibta waa garan karnaa hadii aynu aqligeena slimka isticmaalo taas waan ognahay aadan laakiin sidee bay impact u sameyn karaan arrinta maanta jirta dhalinyarada Soomaaliyeed arrinta maanta jirta anigu waxaan aaminsanahay horta meesha ugu horeeya ay ka bilaabaan waa inay bilaabaan kacdoon oo non violent ah oo maaragtay ilaa 20 sano dibba soo socotay dibti soo socotay dhiig bay daashay dadna way laysay hadii aynu hadda fikrad kale oo la nimaano ah violent ah oo aan leenahay hay aan wadanka nabad ku soo celino no anigu waxaan miisana wax kaga sii daraysaa laakiin aan la nimaano fikrad non violent ah oo aan ku abaarayno meelaha dhib ka jirto oo aan ku undermine garanayno characteriska acti garanaya ama commit garanaya dibta ka jirta Soomaaliya waxa la adeegsadaa oo lagu influence garaya oo runtii muxuu ahaa loo adeegsanaa waa dhalinyarada inuu dhalinyarada abaarno baan aaminsanahay ma sanad aadan wad ogtahay dhibaatooyinka Soomaaliya waxay leedahay hadda diin baa la isku dirirayaa waagi hore waxay qabiil dad qaar waxay leeyahay dawladii hore oo jirtay waxay ahayd dictatorship iyo qaar badan maxaa u malaynaysaa inay tahay dibka ugu weyn ee ka jira wadanka Soomaaliya dibka ugu weyn oo ka jira niyahow wallahi waa faces badan yahay dad badan oo lagu adeeyana waaliya noocyo kala badan oo lagu adeyn karo oo looran karo haye yaa sabab u ahaa dagaalka dibta dhacay laakiin anigu waxaan aaminsanahay number 1 Soomaalida ka dhigay number 1 Soomaalida ka dhigay innaga ayaa ah dibta inaga dhexdeena ayaa dibta keentay waa jiraan gacmo shisheeyaa jira faqri baa jira jaahilnimo jirta waxa soo dhan waa kamid laakiin hadee ummadii wuxuu ilaahay yiri markay iyagu sidoo ismaan ama maartay qoon anigu ma haligo ilaa iyagu saligan waxa aaminsanahay inaga dhexdeena dibtu ka timi oo ilaahay saas u carooday marka waa inay daacadnimo timaada oo maaragtay waxa aynu ku jirno oo elusive ka oo aan sal iyo baar toona laga gaari karin
oo ah in qabiil iska weynaysiyo in aan madaxtinimo raadino in aan maaragtay group interest gaara wata inaan u sacbino oo energize garayno waxyaalahaas dhan waa inaan give up garayna waa inaan compromise sameynaa waa inaan fahamnaa dalka inaan inagu wadaagno oo ina ka badan yahay oo ina ku filan yahay ما سند هذا السؤال شيء ودم بس وحنكو أو أنا كويدين ربع واحد تاعي إن محمد نيسا إنه يه حلقة صوماليا محكينا لقى بالله بكرة حلقة صوماليا نيهو compromise isu tanaasul waa inaan isu tanaasulaan waa in aan aaminsanaanaa qofkii madaxweyne loo doorto ama wadanka wax loo dhiibo oo Soomaaliya inuu Soomaaliya yahay citizen it doesn't matter gobolku ka imaaday it doesn't matter qabiilku ka imaaday all matters is sidee wax noogu qabanaya qofkan muxuu yahay strategigiisa haddii aynu ka heli weyno together waa inaynu wajahnaa oo dhulka u soo dhignaa baawarkiisa ما سند هذا يو أنا جوا عبيرة ينوح تي في هلكا ينود قليل